وعلى آل محمد ضد مركو هركما قرنين واحد نودي إن حل بالله بدنا يا ما تكذب كليان وضد ضد بالو دكتي في درتي ما سوق هذا نندكم تجي عن ديار الصدي هصي شيء واحد شيرين يا غير خمدة ضدي عندوني أنا نحركم في الصدو أفرق ضب أو يلم يقدم مهم بندوني أنا كهذا الله قدر كوبات حير خني واحد متحير لو تلقى لي ويصير دقن كين أنا واحد وقبضن قف كمرك حلو مقعبه وحفيز تولدت شغل يصاركه إنه ولي يجيب شغل أيوه وحفيز كيسوي هاي سيدا درتي لودي ولا نسجى اسمه جيسية كورنا ده وطن كي تسعقبت خلوطها waxay ahayd waxa weelgeed loo joogaysa oo xeer leh oo siyaasad leh oo nidaam leh wasaaraduna waxay ka kooban tahay qaybo badan oo kala sareeya wasiir ku xigeen leh agaasimo guud leh agaasimo waaxid leh intaas oo dhan waxa ka muhiimsan shaqaalaha khibrada ah ee wasaaradda walba jooga ee waayaraga dadka ay tahay in laga shaqaysiiyo oo shaqada rool laga siiyay waa shaqaalaha wasaaraddeeni waxa baabiiyay oo xafiisyadeenii baabiiyay mid walba nin baa laga dhiga maanta xeerkan waxaad ku arkaysaa min bal ula dhamaad wasiirka yeelaya wasiirka ogolaalaya wasiirka diidaya wasiirka fasaxaya waxa la dhahayo inaan xeerkan wasiiru sameeyay noorta halka automatically wasiirka loogu bedelo wasaaradda marka wasaaraddu waa xeerkeeda iyo nidaamkeeda iyo istiraatiijiyadeeda raaci doonta taas waa qodobka labaad mudana yaal adduunyada maanta waxyaabaha ugu muhiimsan waxa ka mid ah marka diinta laga tago deegaanka macdanta iyo xoolaha iyo wax walba waxa ka muhiimsan deegaanka adduunyada muddo malaayiin sanadoodba lagu soo noolaa dhibaato badan baa loo geystay sida darteed in muddo badan oo dambe inta ilaahay dunida rogay lagu sii noolaadana waa la doonayaa sida deegaanka loo ilaaliyo ayaa horumarkii nolosha bini'aadamka ku jira sida darteed dawladda maanta deegaanka ilaalisa innaguna waxaynu nahay ummad u samaysan inay deegaanka baabiiso oo ay deegaanka fasahaadiso innagoo islaama oo ilaahay nagu amray inaynu deegaanka ilaalino ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها واربنا هذا لو ديجانك هالفسادين أنت نجاتيك مال كستون معذن لقى قضى دم عضوا كده يفرده بعتاد لقى إيه حاجة بس الشراب لقى عبي إيه بلاي الجودة دي بوهله أيا لقى قضى ما أنت ديجانك أنا معذن قضله قيمة كستون يوصه بقول لا بكي لو نجاتيك ما يديجانك انت سوق كيلومتر ببعي عقلت الله حير كان وحو قريا وسيرك غدي رصار يسير دغاك لو هغتين لها waxay arkeen inay deegaanka fahmin iska taa wadamada uu deegaankooda hagaajistaan hay'adaha Mareykanka ku bacaawinaysa si wax u qoran mashruuc kastoo Mareykanka bixinayo in la qiimeeyo saameynta deegaanka dunida kala ku yeelanayo waxa la yiraahdo qaacida la raaco la yiraahdo environmental impact assessment in qiimeynta deegaanka la ilaaliyo waxa la oran lahaa qodobada deegaanka ka hadlaya yaa wasaaradda macdanta lagu koobi waa in guddida khayraadku rool ku yeelataa waa in wasaaradda deegaanku rool ku yeelataa waa in golaha guurtooda rool ku yeeshaa waa in xeer ilaalinta qaranku rool ku yeelataa marka shirkaddu dhamaysato macdan baaristeedii in deegaankaas caynku hal lagu celiyo ila deegaanka baaqi loo soxnaya wixii ku jira waynu kala baxnay laakiin nolosha waa baaqi deegaankaan ku baaqay ahaanaysa qof kastoo inaga mid halkan uu ku noolaalaya halkan ay yawmal qiyaamah ugu dhacaya halkan aan lafiis laga soo saaraya durriyadeena halkan ay ku noolaalaysa marka deegaankaas weel wasaaradda ka sareeya ilaalintiisu waa qodobka kale aan doonayna ka hadla waxa weeye qodobka royalty la yiraahdo nimayo taariikhdeena baan doonayna inaan gacsiyo waxaynu hayno mid qabaa'il ah oo dhulku nool oo diinta islaamka mooyo wax mideeya baan u jirin maamulka ingiriiska soo keenay
ingiriisku isagoo inooga yimid dabadda wuxuu damcay inuu isku keen daro oo aynu wada noolaanno oo aynu isu nimaadno sidaa darteed degmooyin buu inoo sameeyey degmooyin reeraa uu bixin karayay hase yeeshee reero walba meel ay wada leeyihiin ayuu sameeyey reer walba inuu meeshaa maqaaxi ku yeeshay isagaa ka dambeeyey cuqaashana wuxuu degmadaasay ka qaadanayaan mushahaaro maxkamad iyo bilays iyo jeel lagu inoo sameeyey degmooyinkeenu dadkay midaynayeen degmadii ugu horreysay ee uu sameeyey berbere yahayd 1890kii degmadii u dambeysay anood bay ahayd 1943kii degmooyin lixa oo dadka midaynaya bay ahaayeen maanta degmooyinkeenu waa ogtiro waa qabaa'ilka waa la isla dhaafo raasraas baa la maraya inana royaaltigii markaynu tuulo ku darno tuulooyinka maanta waa lagu tartamaa waxay maraysaa in laba walaalayo laba tuulo kala yeeshaan marka buurtan iminka laga helo dahab soo jeedkeedana haddaad tuulo ku ogoyn dabarkeedana tuulo kala laga samaynaya wadankaba tuulooyin baynu ku fasaahadinayna waxaan odhan lahaa ereyga tuulo laydhaa xeerkeenniyuu ku soo baxay tuuladu waa dubuur waa waxa waddankeenna baabiiyey ee xoolaha miyiga inaga baabiiyey yaynaan gobol iyo degmo dhaafo xeerkeennu gobol iyo degmo yuu dhaafo mar walbana wax wada lahaanshaha guudan xoojinno dowladda dhaxaynu ka cararayno ayniyada xoogga saaro markaan waxaan odhan lahaa boqolkiiba 80 dowladda dhexe haynoo qabato dowladda dhexe maalin walba inuu jecel yahay unbaa la jooga maalin walba miduun baa jooga kamaanta jooga yaan la eegin dadka qaariyuu u qaadanay madaxweynahan baa ka soo horjeeda Muuse Biixi inuu weligii joogayey beriba qaar kale iman doonee hal la keeno halkaa boqolkiiba 80 laga dhigo 20 hadhay 10 gobolka la siiyo 10 degmada haddaan dadkii isku gobolka waxba ma wada lahayn maxay gobolada kale iska xigayaan hal la dhiirigeliyo dadka isku goboli inuu wax wada yeesho oo magac wada yeesho oo reer salaag noqdaan oo reer sol noqdaan oo reer togdheer noqdaan oo wax wada yeeshaan oo ummadda in la isku tulo xeerkeennu marka horeba ha ku salaysnaado qodobka afraad ee aan soo jeedinaya waxa weeye shirkadda waxa xeerkana dhigayaa inay qasab tahay in shirkad dowladdu yeelato dowladdu shirkad mabda'ahaan iyo xeer ahaan way yeelanaysaa laakiin xeerkani qasab ka dhiga maaha waayo dowladdu waa dee shakhsiyad qaanuuniya hadday danteeda u waraqto kamana way samaysan kartaa dadka shacabkiina wuu samaysan karaa hase yeeshee haddii la yidhaha xeerkiibaa waajibinaya oo xeerku waajibiyo oo imika mid la sameeyo bal wasaaraddii liisanka bixinaysay ee kambani sharci xeerkeedana qasab ka dhigay inay yeelato shirkad iyo shirkaddana leedii liisan baa loo doonaya sidee u tartami karaya ma shirkadda weliga iyabaa tartami karaya shirkad baraysiga innaga nidaamkan aynu qaadannay waa in dowladdu ganacsiga dhiirigeliso oo ay ilaaliso oo shuruucda iyo kormeerka yeelato dadka shacbigiina uu yeesho dee shirkadaha ilaa shuruuci ma lihine nidaamkeenu shuruuci maaha waa kabitaaliis markaa waxaan odhan lahaa qodobadaa shirkadda dowladda ka hadlayana iyagana automatically meesha ha laga saaro xeerkani wasaaradda iyo dadka shacibka ganacsatada un ha u dhaxeeyo iyo da maamulka iyo haddii la kuurayay deegaanka iyo nabadgelyada dowladduna sida aanay shirkad baasoolka keento u lahayn sida aanay shirkad xoolaha dhoofiso u lahayn dee shirkad macdaneed wax ku qasbayaa ma jiraan shirkad macdaneedna yaynaan dhakada ka saarin oo aynu dareensannahay ama fahmi karno in wasiirkana ku soo celceliseen dooniba karo inuu shirkad keligii la samaysto oo da labada saxiix ba yeelan karo dhinacna shirkad ka noqdo dhinacna wasiirkii intaasaan anugu ku soo urinayaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu khayraadka ee inoo soo diyaarisay inoo soo tirtay ra'yigooda iyo aragtidoodana ku soo lifaaqday inay dooda ka qayb qaataan laakiin waxaynu mar kale ka aqbalaynaa haddii ay qoraal loogu soo gudbiyaan qof ahaan iyo guddi ahaan labadu waynu ka aqbalaynaa si aynu u ilaalino dee shuruucdeenna aynu ku dhaqmayno aad baan ugu mahadnaqayaa wixii contribution la diyaar ahaa cid kale oo dooda u hadhay ma jirto
waxaanu isku soo guri doonaa xeerkii waxa la wixii hadal qoraal ah ee mudanayaashu soo jeediyeenna waanu idiin soo gudbinaynaa bejka golahana waanu soo dhigaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo fadlan markaan hadalka dhammeeyo mudanayaasha gacanta taagayaan markii hore qoraalka intaasu jeeran ku celiyey hay soo gudbiyeen waxaa gacanta taagay xuseen ismaaciil iyo maxamuud xayir labadaba waa siinayaa